forex trade suuqa ugu weyn dunida ee lacagaha lagu kala bedesho wuxuu ku dhex shaqeeyaa internetka waa suuq furan oo sarif oo maalintii oo kaliya lagu kala iibsado ilaa 6 trilyan oo dollar suuqan waxa uu si weyn u soo caabaxay 20 sano ee ugu dambeysay suuqa forex loo yaqaano ama isku bedelka lacagaha qalaad cidna kama taliso oo ma jirto meel loogu soo hagaago balse qofka doonayo inuu galo wuxuu rukumanayaa dilaalo loo yaqaano brokers kuwaas oo qofka dhex geynaya suuqa si uu uga macaasho dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa ku soo badanaya isticmaalka ganacsigan forex trade Cabdulqaadir Xasan Maxamuud waa 23 jir ku nool magaalada Garowe ee caasimadda Puntland waxa uu bishii ka sameeyaa macaash dhan ilaa 3,000 oo dollar ganacsigan internetka marka uu kala sarifo ilaa 5 lacagood oo qalaad forex waa suuqa ugu weyn dunida suuqa laga kala bedelka lacagaha dunida suuqu waxa uu ku sahlayaa inaad si easy ah adigoo gurigaaga fadhiya online ahaan ugu samaysid lacag sidaas darteed suuqani waxa uu kaaga baahan yahay barasho waxa uu kaaga baahan yahay ina asaga fursad siisid aad ku baratid sidaas darteed suuqani ina gashid waxyaalo badan ba ka caawinaya waxyaalahaas ka caawinayo ina soo martid first one ina haysatid mastercard secondly Visa card secondly ina heshid broker kaasoo ka caawinaya ina suuqan gashid waa dilaal suuqa ku geynaya si toos ah si aad u kala sarifatid lacagaha waxay ku hayaan lacagihii currency iska bedelka lacagaha sida USA dollar lacagahaas oo dhan oo dhameystiran ba ku jira meesha ku fududeynaya sidaas darteed forex waxa ka helaysaa inaad gashid website badan sida TradingView aniga ahaan Cabdulqaadir ahaan waxa ka sameeyaa bishii hadii celcelis la yiraahdo waa 22 bari bishii maadaama maalin ma fasaxay ku jiraan waxa aan ka sameeyaa markii ay ugu badneed ka sameeyay 2300 bishii labaad secondly waxa ka sameeyay 1350 maadaama inta aan ka sameeyay muddo tira badan bay ugu qaadatay inaan suuqani barto suuqani muddo 4 ilaa 4 bilood ba ku jira labada bilood ugu dambeysay lacag fiican ka sameeyay marka laga yimaado suuqa ganacsiga lacagaha ee forex trade waxa jira dugsi laga barto ganacsigan oo isagana laga shaqeysto ka oo marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano IML haddaba sidee u shaqeeyaa dugsigan waxbarasho ee haddana macaash kale Cabdulle Maxamed waxa uu kamid yahay dhalinyarada si fiican ugu taxan shabakadan bishiina biilahan uga qaata ilaa 600 oo dollar because adaan isku yardayo waxyaabaha ay IML ku hayso horta IML waa akademiyad weeyaan waxbarasho ku haysa laba wax ku haysa toolka suuqa ku akhriya dabcan suuqa waa graph weeyaan haysa package bay iibsanaysa $260 IML iskaga diiwaan geliya $260 service-ka ku helaysi wax kamid ah waxbarashadu dhowr qaybood oo kala baxda basic intermediate advanced qof khabiir inuu soo hor fariisto oo suuqan 20 sano 30 sano khibrad leh inuu ku yiraahdo saaka dhaqaalaha Ingiriiska iyo dhaqaalaha Japan ba muhiim ba meel fiican maraya intaas maraya isku bedel oo ila faa'iido toos macallin team table ba kala leeyahay ganacsiga wax iibsiga iyo wax iska iibinta ama suuqyada sarifyada lacagaha ee labada ruux ay kala qaadanayaan lacagta ganacsigan forex trade waa mid ka duwan oo ma jiro ruux aad lacag ka bedelanayso ama dukaan aad wax ka iibsanayso balse waa suuq furan oo internet haddaba sidee ayay noqonaysaa xalaalnimada ganacsigan maxay diinta islaamku ka qabtaa forex trade Sheikh Maxamed Cabdi Umal waa mid kamid ah culimada Soomaaliyeed sidaan ogsoonahay lacagaha sarifkooda marka laga ganacsanayo sarifka lacagaha shariicadeenu shuruud bay u dhigtay waana meelaha ugu khatarsan ee ribadu gasho waa haday lacaguhu kala jinsi yihiin oo laba nooc kala yihiin oo laba dawladood soo kala saareen hal sharti baa shartiga oo ah at-taqabud waa in la kala qaato oo isi taqabudka laba u qaybsama laba ruux oo is hor joogo oo isi oo kala gudooma waxa la yiraahdaa يعني وحويان تقابض حقيقي لهذا مرنا وحو نقضا تقابض حكمي او عرفي مركا لو علينيا او waxay culimadu yiraahdaan lacagahan inta badan muxasarifka bangiyada iyo dhaxmada maalmoodo shaqo ayaa curfigu yahay wixii ka dambeeya lacagta in la qaato طيب marka muamalaadkan la fiiriyo marka waxay leeyihiin majmuuc fiqh islaami culimada wax ka qortay waxay leeyihiin suuqyada caalamiga ah ee lacagaha lagu kala sarifto qabdiga xukmiga isaga meel iska dhigay hatta ki xaqiiqiga aha
ee labada beri ee maalmaha camalka waxaan leeyahay kii xukmiga ahaa ee labada beri ee shaqadu socoto inta loo sugahayay xataa kaas kama jiro maxaa yeelay wuu ka sii dibdhacaa oo waqti kaluu sii qaataa waqtiga kale lacagtu sii qaadatay qabdigeedii qaadashadeedii gacan ku dhigeedu uu sii daahayo waxay marka diidaysaa axaadiistii nabiga sallallahu alayhi wasallam dunida oo marba marka ka dambaysa casri sii noqonaysa iyo isticmaalka internetka ayaa wax kasta ku soo koomayaan shaashada kombiyuutarka iyo mobilka waxaana la arkayaa maalin kasta qaar iyaga oo sariirtooda jooga jaamacada ka baxay ama tujaar noqday balse dhanka kale waxa jira dhibo ku gadaaman haddii aadan darsin ama baran maxamed saalax SBC garowe